saraakiil iyo ciidamo ka soo goostay jabhada caare deegaanka qardhe ee maamul goboleedka Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay xarunta gobolka Badhan ee magaalada Badhan. Taliyaha ciidanka qaranka ee gobolka Badhan Guray Cismaan Saalax, maayirka degmada Badhan iyo gudoomiyaha gobolka Badhan ayaa ciidankaas iyo saraakiisha watayba ku qaabilay xarunta maamulka degmada Badhan. waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ciidanka iyo saraakiisha la soo dhaweeyay. waxaan tignaano meel la qardho nin ciidamo ku haysto la yiri magaciisa caare runtii aanu ma aqoon qofka bini'aadamka in la caayo waa wax mamnuuc ah laakiin ninkaasi wuxuu ahaa markaan qiimeyn military ku sameeyay nin aan ahayn federaalka aanu shaqayn somaliland aanu shaqayn Puntland aanu shaqayn nin beenaala oo dadka been sheegay oranayo mushaharkeen waa cadceedaas oo kale qoryaheena waa cadceedaas oo kale gaadiidkeena waa cadceedaas oo kale waxa uu sheegayana wax ka jira aan jirin مسؤولين بدن reer Somaliland oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka mid yahay wasiirka shaandhiga Ciise Axmed Yuusuf ka mid yahay inuu aflagaadiyo runtii ana ka xaalmarinaya aad baan lagu xumaay dadka islaamka ay xuquuq bay leeyihiin madaxnimada iyo derisnimada xuquuq bay leedahay qofka inuu aflagaado la caayo ma anu isaga ma caayo laakiin nin aan waxba gacanta ugu jirin buu ahaa ciidankii inta ay la socotaa way la socotaa saraakiil baa ku jirta ciidan askarina way ku jiraan intii kalena way imanaysaa dowladkaasna waa mid rasmi ah hadalkan aan ku hadlayaana waa mid runa waana mid xagga dambe ka soo tarmaya maaha mid isdhimaya oo been ay ku jirto. waxa kaloo iyaguna dhankooda halkaas ka hadlay maayirka degmada Badhan iyo gudoomiyaha gobolka iyo waliba taliyaha ciidanka qaranka ee gobolkaasi. halkan maanta waxaanu isugu nimi ciidamo ka soo goostay ninka darlo iyo meelaha jooga ee caare la yiraahdo ciidamada oo wato gaashaan la dhexe Ali Abdi Saalax Ali Abdulqe waxay ku soo wareegeen ciidamadaasi ciidamada qaranka ee gobolka Badhan ee taliye Guray uu haysto waanu soo dhaweynaa gacmo furan baan ku soo dhawaada dalkeena iyo dadkeena baan leenahay markii hore waa khaldanteen waa la idin khalday qaadkaas ninka rag waa ka soo noqdaa haddana waad ka soo noqoteen waan la idin soo dhaweynayaa dalkeena iyo dadkeena ku soo dhawaada. waxaan halka isugu nimi inaan soo dhaweyno ciidanka uu wato gaashaanle dhexe Ali Abdalla Saalax oo xabad liqa loo yaqaano. waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin inaad ku soo noqotaan dalkiinii iyo dadkiinii iyo ciidankiinii qaranka oo aad shaqo gashaan oo aad dalka u shaqaysaan. waxaan leenahay dee qofku waa qaldamaa sidaa darteed Ali Abdalla Saalax waa sarkaal loo baahan yahay waa sarkaal wax badan qaban doona insha Allahu xaggaasna dee hungada ay tahay isaga ka warbixin doona oo ka hor dhici maayo. waxaan leeyahay waa mahadsan tahay taliye Cali iyo ciidamada la socda qolyaha ku maqan oo wali la joogana waxaan leenahay dalkiina iyo dadkiina u soo noqda gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa halkan aan idin sugaynaa insha Allahu waxa weeye si fiican baanuna idin soo dhaweyn doonaa. wada soo dhaweynaynaa sarkaalka iyo askartiisa saraakiilkana ku jirta aad iyo aad baynu mahadsan yihiin maadaama ay maanta dalkoodii dib ugu soo noqdeen iyagoo ku soo noqday dowlad qarankoodii Somaliland dib ugu soo laabtay aad bay mahadsan yihiin waana soo dhaweynaynaa iyaga iyo qaybaha kaleetoba waxaanu leenahay ku soo dhawaada gobolkiinii iyo dadkiinii dowladdiinii iyo dadkiinuna way idin rabtaa waana la idinku hambaliyeynayaa soo dhawaada waajibaadka qaranka aad leedihiinna dhinaciina ayaad qaadan doontaan kelmadda ayaan u holaday waana soo dhaweynayaa. Jaabir Saciid Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Badhan.